على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز توفيق إسلاميك سنتر مقالة أوسلو دنك نوروي qaybtiisa Roman waxay idinku soo dhaweynayaan mu'tamarkii 18aad oo la qabanayo October 2 ilaa 5 2025. mu'tamarka cinwaankiisu waxa uu yahay qowlullahi tabaaraka wa ta'ala inma ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil aakhir ila aakhir al-aaya. mu'tamarka waxaan ku jirnaa maalintiisii labaad, waxaan galaynaa biidnillahi ta'ala muxaadaradiisii saddexaad. muxaadarada cinwaankeedu waxa uu yahay jamcu lqur'aan, ururinta qur'aanka iyo tartiibkiisa. waxaa inoo geli doona insha allahu tacaala doctor sheekh fu'aad sheekh axmed iimaan. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. موضوعا أن ربنا مانتا إنان كهذلنا وموضوع أدوين محل يرهدا سيدي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان وكسو دجيه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. وحاول أكسرنا هاي قرآن كريم كأولوكسو دجين هاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أوقف سما لبا قيبات قيبتي أوجوغي مكة أو سدحي طبنكي سنة أها أو مكية اللي راهدو إيه قيبتي أوجوغي مدينة أو طبنكي سنة أو قرآن كي سودجي مدني أها مركا آلاتكي وحلقو قرأيي dadkii wax qorayeen shuruudihii quraankan kariimka oo hadda haysatiin kitaabkan hadda arkaysiin oo shaqlan maxaa la yiraahdaa sida uu ahaa inta uu soo maray oo maxaa la yiraahdaa oo waqti oo isbedbedel ah ilaa ay culimada waxay ku tilmaamaan in uu ahaa saddex jamc in la suubiyay jamcu alqur'aan alkariim fi ahdihi alayhi salatu wassalaam jamcu alqur'aan alkariim في عهد أبي بكر جمع القرآن الكريم في محل هذا عهد عثمان. صدح ذا جمع يا جيران مركا لو ما سو كوبي كرو إن لي هذا 4 دقيقة 5 دقيقة محاضرة لكن waxaan isku dayaynaa inaan rumuusta aan ka taabano wixii muhiim ah inaan ka sheegno hadduu Ilaahay yiraahdo. waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran bal kutubo laga qoray maxaa la yiraahdaa jamcuhu wa tartiibuhu sida kutubo badan ay u bixiyeen magacaas sida loo jamciyay laana qofka quraanka kariimkan hadda aqrinayo aanan garanaynin maraaxishii uu soo maray kitaabkan kariimka ahaa iyo dadkii sida la iskugu soo dhiibay ilaa iyo hada hadda aadan garanaynin arinta dhibkeedii la haweeyay
nabiga calayhi salaatu wassalaam adduunyadan ilaahay wuxuu u soo diray ayadoo maxaa la yidhahdaa mugdi ah oo maxaa la yidhaahdaa kaana yaakulu alqawiyu daciif qofkii xoogga badnaay uu ka adkaa uu dilayo ama oo wuxuu rabo ku suubinayo qofkii daciifka ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam fadrada oo ilaahay soo saaray waxay ahayd fadradii ay dadka aad iyo aad ugu baahnaayeen in uu qaa'id ilaahay u soo saaro marka qaa'idkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray oo qur-aankan kariimka uu ku soo dejiyey asagoo qaari xiraaj joogo suuraddii ugu horreysay ama aayaddii ugu horreysay iqra' bismi rabbika aladii khalaq qisada way dheertaho kulligiin waa wada garanaysaan marka aniga mar raba maxaa la yidhaahdaa kayfiyatu nusuuli lqur'aan inaan ka sheekeeyo laakiin kayfiyatu jamcihi wa tartiibuhu sida loo jamciyey sida loo qoray lianna qoraalka kitaabka kariimka ah wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo qayb la yidhaahdo rasmi lqur'aani alkariim oo qaybta labaad la yidhaahdo dabd lqur'aani alkariim rasmiga waa maxay in la qoro alif ba ta sida iskugu xiga bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin qoraal ahaan kaas rasmi lqur'aana la yidhaahdaa iyo qaybta labaad oo ah adabd oo gadaal dambe ka yimid oo ah kordhigii hoos dhigii godkii dhibicdii iyo wixii la mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii abubakar cumar cuhmaan 40 sano ugu horeeyey qur-aanka kariimka ah oo la akhrinayo qur-aan wuxuu ahaa aanan shaqlaneen dhibicna lahayn waa garan karaysaa shaashadda haddii lagu soo saari lahay maanta suuratulfaatixa oo qoran bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin ilaa aakhiri asuura ayadoo aanan shaqlaneen alxamdu aanan shaqlaneen bismi illaahi ba'da aanan dhibic lahayn siday u akhrin jireen waa barnaamijkaasna waa barnaamij aad iyo aad u weyn oo u baahan naftirkiisii in la fahmo marka nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu lahaa kutaab oo qur-aanka qori jirtay oo u qori jirtay asaga calayhi salaatu wassalaam cali ibni abi aalib maxaa cuthmaan ibnu cafaan mucaawiya iyo wixii lamid ah zayd ibnu thaabit oo qur-aanka oo qori jireen mar alla markuu qur-aanka uu ku soo dego nebiga calayhi salaatu wassalaam shardi waxaa ahaa qur-aankaas in hortiisii lagu qoro oona noo imaan doonto hadduu ilaahay yidhaahdo jamaca oo ah abubakar oo shuruudihii loo dhigay mid ka mid ah hadduu ilaahay idmayo marka nebiga calayhi salaatu wassalaam kitaabka markii uu bilowday iqra wuxuu bilaabay in maxaa la yidhahdaa saxaabadii u yeero ay qur-aankii ay qoraan walidaalika waxaa garanaysiin waqtigaas oo qur-aanka la qoraya carabta wax qoro aad ay u yareed qoraalka af carabi in la qoro waa aad u yareed carabiga la qori jirina ma ahayn carabi shaqlan sidaan hore usoo sheegnay carabi aan shaqlanayn oo ahay nebiga markii kitaabkan uu ku bilowday lagu soo dejiyey ee iqra bilaabatay waxyaabaha wax lagu qori jirayna waxay ahayd oo ugu weynaay waxaa wax lagu qori jiray maqaarka maxaa la yidhaahdaa dhagxaantan waaweyn aad aragteen in la soo qaado oo la sifeeyo oo la caddeeyo korkeeda wax loogu qori jiray waxaa wax kaloo lagu qori jiray maxaa loox alwaaxda waaweyn waxbaa lagu qori jiray sidoo kale maxaa la yidhaahdaa geetimireedka waxbaa lagu qori jiray saasoo darteed waxaa kaloo waxyaabaha wax lagu qori jiray ka mid ah maxaa la yidhahdaa lafaha waxbaa lagu qori jiray intaa shay ayaa lagu qori jiray qur-aanka kariimka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma yeeli jirin qur-aanka in maxaa la yidhaahdaa la xifdiyo keliya bal wuxuu amray in la qoro walidaalika jamciga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu suubiyey way ka duwaneed labada jamci dambe aan u tagi doona hadduu ilaah yidhaahdo jamacan wuxuu ahaa jamac kala tagtagsan qaar maqaar sida aan sheegnay ku qoran qaar lafa ku qoran qaar dhagax ku qoran oo kala duwan oo ahay marka nebiga calayhi salatu wasalaam markii uu ilaahay oofsaday uu dhintay calayhi salaatu wasalaam oo ila rafiiq alaclaa aaday qur-aanka kariimka saa u kala tagtagsanaayo midba meel buu yaalay midba meel buu ku qornay jamc ma ahayn laakiin waxaa la yidhaahdaa aljamc fii cahdihi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu idlaaqaa maxaa la yidhahdaa meelaha uu ku qornay iyo fii suduuri rijaali in ay saxaabadii ay xifdisnaayeen saxaabadoo dhan qur-aanka ma wada xifdisneen laakiin inta badankoodii qur-aanka way xifdisnaayeen nabiga markii uu geeriyooday calayhi salaatu wassalaam waxaa garanaynaa jamiican dagaal baa dhacay oo maxaa la yidhaahdaa oo xarburidda markii meesha uu ka dhacay saxaabo badan ayaa lagu laayey oo dagaalkii musaylimatulkadaab dagaal badanaa meesha ka dhacay dagaalka oo musaylimatulkadaab uu hogaaminayey waxaa lagu laayay saxaabo badan ay ku jireen ugu yaraan ilaa iyo 70 saxaabo oo dadkii qur-aanka kulmiyey oo xifdisnaa ahaa marka
saxaabada oo qur-aanka xifdisnaayeen markii meesha lagu laayay ayaa wuxuu suubiyey abubakar jamciga labaad oo aan leenahay jamcu lqur'aan alkariim athaani oo midka labaad ah muxuu kaga duwan yahay jamciga labaad oo abubakar uu suubin doono aan ka hadli doono in laysku keeno maxaa la yidhaahdaa qur-aankii kala tagtagsanaa oo mid walba meel ku yaalay in hal kitaab layskugu keeno hal musxaf layskugu keeno idan maxaa la yidhaahdaa zayd ibnu thaabit oo ahaa maxaa la yidhaahdaa ninka ugu weynaay oo xagga qoraalka qur-aanka kariimka iyo jamcigiisii madax ka ahaa ninkaabaa xadiiskii bukhaari oo soo warinayay oo wuxuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay cumar ibnu khataab ayaa waxaa u yimid maxaa la yidhaahdaa abubakar buu u tagay oo wuxuu yidhi yaa abubakar waxaan kuu sheegay yuri maadaama aa khaliifadii muslimiinta aad tahay oo ninkii muslimiinta haystay aad tahay khaliifka muslimiinta xogayr hadalkii baarkallah khaliifka muslimiinta maadaama maxaa la yiraahdaa aad tahay waxaan ka codsanaynaa in aad quraankii aa kulmisid cumar baa wuxuu ku leeyahay abubakar buu ku leeyahay abubakar marka wuxuu leeyahay sideen aan u suubinaynaa camal nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam uunan suubinin oo uga tagay macnaha wuxuu ula jeedaa waa inaan iska dayno sida nebiga ugu tagay meeshii uu uga tagay inaan ku dhaafnaa wanaagsan maya wuxuu leeyahay wallaahi khayr waaye saxaabo badanaa meesha ka baxday saa darteed waxaan ka cabsanayaa ama aan ka baqayaa in badan oo qur'aan kariimka in la waayo maadaama saxaabo badan ay dhinteen abubakar wuxuu leeyahay cumar kama uusan zuulin inuu igu soo noqnoqon hayo xataa intuu ilaahay qalbigaygii ku sharxay maxaa la yidhaahdaa cumar qalbigiisii wuxuu ku sharxay idan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaan waxyar gadaal u noqono qur-aanka kariimka waxay isla aqrin jireen sanad walba hal mare waxay isla aqrin jireen maxaa la yidhaahdaa jibriil cardiga aan naqaano ama subciska aan naqaano qof inuu aayad aqriyo ama safxo aqriyo ama xoogo aqriyo laga dhigaysto qofka kale aqriyo sanad walbo qur-aankaas kariimka cardigay suubin jireen sanadkii ugu dambeeyey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam laba cardi ay suubiyeen lixda bil kale halay suubiyeen cardiga waxaa joogay oo meesha la fadhiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu thaabita la fadhiyey oo dhegaysanayay walow uusan jibriil arkaynin laakiin zayd ibnu thaabit wuxuu arkayaa inuu nebiga qur'aan uu dhegaysanayo asagana aqrinayo laga dhegaysanayo cardiga labada cardi oo jibriil aqrinaya qur'aanka zayd ibnu thaabit baa meesha fadhiyey idan waxay leeyihiin marka zayd ibnu thaabit aan u yeerno maadaama uu yahay qofkii qur'aankan kariimka ninkii jamciye uu yahay zayd bay u yeerayaan xadiiskii bukhaari waxay leeyihin zaydow waxay zayd ku sheegayaan marka wixii lagu dooran lahay qof muxuu uu yahay waxaa tay leeyihiin nin shaab ah dhalinyaronimada waa muhim jiddan nin shaab baa tahay oo caaqil baa tahay labo thalith tuhmo oo kaama qabno maxaa la yiraahdaa oo been iyo inaad wax ku kacaysid kaama qabno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cardigii qur'aanka oo la aqrinayay jibriilna waa la joogtay afartaa shardi ayaan kugu dooranay waxaan rabnaa in kitaabka qur'aanka kariimka aa jamcisid ayay yiraahdeen waxaa dhahaya abubakar iyo cumar marka wuxuu leeyahay jawaabtii uu siiyey cumar oo la siiyo abubakar siiyo wuxuu leeyahay see aad ugu dhaqaaqaysiin wax nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uunan suubinin uunan falin lianna dadkaas waxay ahaayeen waxay ka dambeeyeen waxaa nabiga maa suubiye hala suubiye ma suubin maya ha laga joogsado marka wuxuu leeyahay zayd ibnu thaabit wuxuu leeyahay kama aynan zuulin labadoodii inay igu soo noqnoqonayaan ilaa iyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala qalbigaygii ku sharaxa waxa uu ku sharxay abubakar iyo maxaa la yidhaahdaa cumar qalbigooda wuxuu ku sharxay wallaahi yuu leeyahay waxaa igaga fududeed camalkan ay ii dirayaan in aan qur'aan aan soo kulmiyo aan ka soo qaado meelahaas aan soo sheegnay oo aan ka soo aruuriyo alwaaxdii oo aan ka soo aruuriyo dhagxaantii maqaarkii iyo geetimireedkii meelihii qur'aan ka soo aruuriyo waxaa igaga fudud inay jabalkaa qaad yidhaahdaan uu yidhi laakiin maadaama amiir اlmuminiin uu yahay maadaama uu yahay ninkii maxaa la yidhaahdaa haystay muminiinta uu yahay wuu yeelay wuxuu yihi okay waa inaan kulmino qur'aankii kariimka u fiirso qur'aankan kariimka aan haysano maanta dhalinyarada ama dadka inta fadhiya aan haddaan weydiino imise aayadood waay qur'aanka kariimka waa 6,000 iyo waxaa laisku waafaqsan yahay quraa'ada oo dhan
waxaa laysku waafaqsan yahay qur-aanka kariimka inuu yahay 6200 aayadood jajabka waa khilaaf oo maxaa la yiraahdaa makiyiinta waxay yiraahdaan 6238 maxaa la yiraahdaa bagdaadiyiinta waxay yiraahdaan ama ciraaq iyo dadka markaa tagtid oo basra iyo hadaa tagtid 6204 shaamiyiinta waxay yiraahdaan 6218 wahaakada taana maxaa la yiraahdaa ma ahan qur'aan dheer iyo qur'aan gaaban iyo aayado laga tagay maahan taana waa inaa macluumaadkaas ogaatiin bacda alqur'aan waxaa kamid ah aayadaha maxaa la yiraahdaa aayad dheer in laba aayad laga dhigo ama saddex aayad laga dhigo ama saddex aayadood in laga dhigo hal aayadood oo kale la isku aqriyo qur'aanka asagoo quraankii ah mutafaq waxaa lagu yahay in ilaahay quraankiisii uu yahay 6200 iyo dhowr aayadood 6200 iyo dhowr aayadood marka waxaa la rabaa in laga soo aruuriyo meelaha aan sheegnay marka labada amiir maxaa la yiraahdaa ama labada sheekheen waxay u dhigeen barnaamij aad iyo aad u culus oo qofkii isku daya in barnaamijka soo dhex jira ama wax ku darsado uusan karaynin barnaamijka loo dejiyo waxaa ka mid ah arrintaana waa muhiim jiddan in qof walba oo muslim ah oo anaga naga mid ah inuu ogaado waxa laga soo maray maxaa la yiraahdaa qoraalkan quraanka kariimka ah waxyaabaha kow loo qoro maxaa ka mid ah u fiirsa awal waxaa la yiri quraanka kariimka oo lala imaanayo lianna Abu Bakar wuxuu amray Umar iyo Zayd buu wuxuu amray inay istaagaan albaabka maxaa la yiraahdaa masjidka ay weydiiyaan saxaabada ay yiraahdaan war yaa quraan haya quraanka yaa haya oo maxaa la yiraahdaa oo in la qoraa loo baahan yahay idan taa waa macluumaad caam ah quraanka yaa haya laakiin shardi maxaa ah qofka quraankaas haya awalan waxaa laga rabaa quraankan uu wado inuu xifdisan yahay inuu yiraahdo aniga suuratul kawthar maalan aan haya Abu Bakar wuu xifdisan yahay Umar wuu xifdisan saxaabadu waa wada xifdisan yihiin lama rabo in la iska fadhiisto la iska qoro lama rabo waxaa loo qoray awalan qofka quraanka la imaanaya oo ula imaanaya maxaa la yiraahdaa Zayd ibn Thabit iyo maxaa la yiraahdaa Umar ibn Khattab ula imaanaya albaabka ay fadhiyaan awalan inuu yiraahdo quraankan wada waa xifdisanahay koow ثاني شيء quraankan in uu qoran yahay oo meel uu ku qoran yahay lama rabo kaliya xifdis kaliya lama rabo asoo qoran la rabaa saddex waxaa loo shardiyaa qoraal keliyana maahane waa in lagu qoray nabiga hortiisa calayhi salaatu wasalaam haddii oo aan nabiga hortiisa lagu qorin oo adiga qof kale ka soo qoratay lama qoraayo shardiga ugu dambeeya afaraad oo muhiimka ahaa wuxuu ahaa in qofkan quraanka wado shuruudahaas markuu ka soo bax laba marqaati inay la socdaan bilaa calaykum waxaa garan karaysaa diqada ay u dejiyeen in loo qoro quraanka kariimka hal musxaf la iskugu geeyo Abu Bakar oo u qoro inaysan ahayn wax dheel ah oo maxaa la yiraahdaa la iska soo iqtiraacday inuu ahayn quraankii u fadhiisteen waxaa la yiraahdaa ilaa 6 bil lagu aruurinayay ilaa 6 bilood lagu aruurinayay laana waa garanaysiin Abu Bakar fadradii oo noolay ma badneen oo 2 sano iyo 4 bil taqriiban inay ahayd 6 bil lagu aruuriyay aruurintii inta ay socotay waxaa la waayay aayado ka mid ah quraankii waa la waayay waxaa ula jeeda marqaati loo waayay waxaa loo heeray inay qoran yihiin in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hortiisii in lagu qoray waa la helay in maxaa la yiraahdaa la xifdisan yahay waa la helay laakiin marqaatiyaa la waayay waxaa la yiri labadan aayadood min awaakhir suurati al-baraa'a ama tawba لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لبداس آيادود الله وايي زيد بن ثابت وحفظ السنيهي عمر وحفظ السنيهي لكن وحال هينين مصحف ميل أما محل يراهدا أي كو قرنته لبدي آيادود مرقاتين الله هايو oo maxaa la yiraahdaa wixii waa la waayay marka la waayay waxa la yiri halis baa la galay marka labadaas aayadood lawla allah thumma oo maxaa la yiraahdaa tadakhulka ilaahi oo meesha soo dhax gali lahayn maanta aayadahaas lama hayn lahayn hadda ka hor marka waxa la yimid marka labadii aayadood abi khuzayma al-ansari ama khuzayma ibn al-ansari ayaa aayadihi keenay wuxuu labadan aayadood ana rasuulka ka dhigaystay waana qoran yihiin waa kana marqaati ma jira marqaati ma laha marqaati hadaa lahayn see loo qoraa marka haddaa yaro gadaal u kacno qiso oo imaam bukhaari warinaya jirtay marka oo dhahayay maalin maalmaha ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa faras iibsaday oo wuxuu ka iibsaday
dadkii deganaay madiino deganaa yahuudi deganeed madiino qaar ka mid ah oo ka iibsaday faras markii uu farastii iibsaday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkii wuxuu ku yiri gurigan aadaya lacagtii gurigay ii taala marka maxaa la yiraahdaa iga daba imaam nabigana calayhi salaatu wasalaam socodkiisii uu degdegi jiray oo ninkii uu ka tagay intuu guriga u sii socday oo gurigii aadayay ayaa maxaa la yiraahdaa ninkii qof kale oo dhaxda ka helay lacagtii uu nabigu u sheegay mid ka badan oo u sheegay qalaas labi ebro iskugu dhuftay marka meesha waa ka tuuray wuxuu yiri qalaas adan ka iibinaya marka nabiga markii uu dahsaday ninkii oo ka iibsaday faraska markuu dahsaday oo gadaal ugu soo noqday ninkii wuxuu arkay nin kale farastii ka iibiyo lacagtii maxaa la yiraahdaa iyadoo la kala qaadanayo marka ninkii oo la hadlay wuxuu yiri yaa rajul faraskan ana ka iibsaday Soomaaliya maxaa ninkan ninkii marka wuxuu ku yiri marqaati kanse ina iga iibsatay oo nabiga lagu yiri saxaabadana nabiga wuxuu baray inaysan u marqaati kacin ilaa meel ay joogaan ma saxaabadii war nabiga runo sheega ma marqaati ma ka tihiin maya idan خزيمة ابن الأنصاري أيام ماشي يمد وحجري أنا جا نبي مرقاتي وحرقوها إنه فرستان كإبسة ماشي أنا موسن جوجين نيكي خلاص أديك ما أوجيها مركار أنت مرقاتي كان سما دام أهد فرس كنبي جابوا إبسة قصة وين راد وصابح ونيكي بو يمت نبي عليه الصلاة والسلام وحجري مركان فرس كإبسة أديك إلى ما جوجين سام مرقاتي وقع هذا مركب وحجري يا رسول الله habeen iyo maalin walba maxaa la yiraahdaa Jibriil waxa noo sheegtay samada inuu Qur'aan kaaga soo dejiyaan ku maxaa la yiraahdaa aaminay markii ina faras ninka iibsatay ina aamino weyna waxa waaye wax macquul maahan markaas wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam qowlkii mashhuurka ahaa abi Khuzayma al-Ansari ama Khuzayma ibn al-Ansari ta'dilu shahadatu wa shahadatu rajulayn yiri shahaadadiisi waxay la mid tahay laba qof shahaadadiisi la mid tahay marka gadaal la iskula hadlo waxa la yiri soo ma jirin qiso hadda ka hor oo nabiga yiri ninkan Abu Khuzayma laba qof oo ahlu Madiina ama muslimiin ah ay shahaadadiisa la mid tahay ha saadarteed ayaa labadii aayadood horta meeshii loogu qoray kitaabka kariimka ah waxa kale oo la sheegaa min almu'miniina rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi asiga sahih al-Bukhari soo warinayo sidoo kale in laga helayna maxaa la yiraahdaa Abu Khuzayma al-Ansari quraankii oo maxaa la yiraahdaa u keenay Abu Bakr iyo Umar إذن أفرسو أنت أو تطور أو قرآن كسومري هل مصحف أيا لغو كلميي مع قراءات كان هذا الأغري مع محالي هذا أنت أو ككوبية هاي قرآن كان مركي أو رماضي أو قرآن كان لقري ومدى وايا ريضو مدينة مركي ميرهان مين نسير دافينين وكان المصحف عند أبي بكر بوهاي أبو بكر بهاي مصحف كاس أو قرقي سيبو يالي markii Abu Bakr radiyallahu anhu la ofsaday masxafkii waxa qaaday oo gurigiisii u yaal Umar waqtigiisii wax qalalaasa ah iyo wax dhibaato ah maysan dhicin masxafkii asaga ahaa Umar radiyallahu anhu 10 sano uu xukumayay dawladda islaamiga oo muslimiinta uu xukumayay oo Madiina joogay kadib markii uu geeriyooday maxaa la yiraahdaa Umar masxafkii wuxuu ku wareegay Xafs oo gabadhiisii ahayd mu'miniin Xafs ahaan jirtay markaa هايتنتي حفصة انت ايه هايسي 13 سنة او محل يراهدا او عثمان رضي الله عنه او محل يراهدا حكمك او قبصدي ايا ماشا marka waxa ka dhacay in la furto bilaad badan oo islaamiya ruqac badan in la furto ila agaranaysin ila Armenia Azerbaijan dhulalkan Ruushka inay muslimiintii ay soo gaaraan Xudayfa marka wuxuu warinhayaa قصة آدي محل يرهذا أو آدي وناكسن أو إمام البخاري أو صاري حذيفة بن اليمان شام بو جوجي مركب حكوبيري قليه أو محل يرهذا أو مغازي كاس أما جهات كاس آذاي أو أبحي محل يرهذا إلا إيو أذربيجان أيو صار راعي مركا وحو يمد أذربيجان مركو يمد أو ماشى سيميدو وحو أرك حذيفة رضي الله عنه يا وحو أركي khilaafka maxaa la yiraahdaa muslimiinta dhaxdoodii taagan ayuu arkay iyo sida la iskugu khilaafsan yahay in ay muslimiintii dhaxdoodii iskhilaafsan yihiin oo mid walba midka kale uu leeyahay qiraa'adkaada ka fiican macallimiintii inay isdagaalaan xataa ay gaartay qaarkood qaarka kale inay gaalaysiiyaan لأن إسلام كي وفدي ميل دير بو غاري حذيفة ماشي بو وحو كسو قاتay maxaa la yiraahdaa farastiisi Madiina buu yimid مدينة مركي أو يمد رضي الله عنه أبو وحوتجي محليرة عثمان بوتجي وحجري ومد إسلام كهلال سيدي يهودي من الصار إن خلافين لأنه
garanaysiin qiraa'aadkan oo unzila alqur'aana calaa 7 axrufin keligeed u baahan maxaa la yidhaahdaa muxaadaro in laga jeediyo u baahan khilaafka qiraa'aadkii iyo dadkii oo soo islaamay hadda iyo maxaa la yidhahda hadduu ilaahay ku fiican yahay haddii la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa dadkii af carabi aanan ku hadlaynin meeshiyaa waxay keentay marka khilaaf badan keentay marka wuxuu leeyahay ummadan islaamka inaa haleeshid hal misxaf u suubiyo jire waa misxafkana hadda haysatiin oo ku qoran misxaf al-Uthmani la yiraahdo misxaf al-Uthmani taariikhdii la qoray marka Uthman wuxuu yiri wuxuu amray wuxuu u yeeray maxaa la yiraahdaa Zayd ibn Thabit oo ahay ninkii qoray misxafkii hore saan uga soo sheekeynay nabiga kaleey salaatu wassalaam oo la joogay asaga ko iyo oo maxaa la yiraahdaa ansaari iyo saddex maxaa la yiraahdaa ahlu Makka oo Qurayshi ayuu wuxuu amray kitaabka Qur'aanka Kariimka in dib loo qoro waxa ahay Saciid ibn al-Aas iyo Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hashim ama Hisham iyo Abdullah ibn Zubair saddexdoodii ayuu wuxuu amray Qur'aanka qoro yiri laakiin wuxuu yiri awalan waa in qoraalkan uu ka duwan yahay qoraalkii hore qoraalkii hore wuxuu quraan kala tagtagsan oo hal meel la isku keenayo ama laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay qiraa'aadkii iyo waxyaabihii oo maxaa la yiraahdaa la isku khilaafay in la qoraa loo baahan yahay marka saddexdiina wuxuu yiri ummuna Xafsa wuxuu u diray maxaa la yiraahdaa war wuxuu yiri Xafs musxafkii oo Abu Bakar qoray oo gurigaadii yaalay soo dir waa nusxan ka suubinaya waa sawiranaya markaan hagaajiye kadib waa ku soo celinaya oo yiri haduu Ilaahay raxdo Xafsa way u soo dirtay Uthman marka wuxuu amray saddexdan oo Qurayshiyiinta iyo Zayd ibn Thabit inay nusakh suubiyaan nusakh ay asaga asal oo u yahay kitaabkan oo qoray maxaa la yiraahdaa Abu Bakar oo qoray nusakhda la suubinayo marka wuxuu yiri hadii iskhilaaftiin qoraalka Quraanka Kariimka marka la qorayo hadaa iskhilaaftiin waxa ku qortiin oo yiri luqadda ama lahjada Quraysh ku qoro yiri Quraanka Kariimka wuxuu ku soo dago yiri lahjadan Quraysh buu ku soo dago yiri sidii yaa lagu bilaabay Quraankii Kariimka qoraalkiisii waxa la yiri inta Quraanka ay qorayeen oo nuskhooyinkaas ay suubinayeen khilaaf kama dhaxdhicin oo kelimada isku khilaafeen ma jirin ilaa kelima waahida oo kelimatu at-taabut oo maxaa la yiraahdaa fi suurati al-Baqara taabut hal ta'adan ma ta'ada dheer baan u qoraynaa mase ta'gaabkii oo maxaa la yiraahdaa aan u qoraynaa markii iskhilaafin kadib Uthman bay ula noqdeen oo wuxuu yiri ta'ada mid dheer u qora sababtoo marka lagu istaagayo at-taabuh lama dhahayo maxaa la leeyahay at-taabut baa la leeyahay Qurayshna saasay ugu dhawaaqday waa kelimada kaliya isku khilaafeen waaye marka nusakhdii uu suubiyay maxaa la yiraahdaa Uthman ilaa iyo la isku khilaafsan yahay mashan nusakh buu suubiyay oo ama wuxuu suubiyay 7 waxa la yiraahdaa ilaa iyo 7 ayaa sax taqriiban hal waa mushaful imaam mushafka la yiraahdo حتى محل جزيرية أي كتب قرنيسين في مصحف الإمام فيما قد أتى ميشو ليهاي أساها يسنجري ومصحف كي مركي للدلي رضي الله عنه ومحل هذا ديجي سي كرك الله أركي ماشا وأغرسنا هذا مصحف واحد مصحف وحوطة أهل مدينة ومصحف المدينة لديه جري مد مكبو أدري وأهل مكة مدك أغريان وايه وأهل هذا مكيينتي أما محل ابن كثير مد بصربو أدري وأقرأ هذه صومالي أغريناين وأبو عمرو البصري كوانا كوفة بو أدري ساقرنيسين أهل كوفة مركي اللي يراهضو وحالو جمعيها محل يراهضا عاصم حمزي كسائي قلف العاشر أفرتو ذا كوفة اللي يراهضا إيو بصري محل يراهضا أبو عمر إيو يعقوب labada markii la isku geeyo iyo almadaniyani markii la yiraahdo Abu Jaafar iyo maxal yiraahdo naafac marka inta musxaf buu qoray qaar wuxuu u diray Kuufa qaar Basra buu u diray Bahraynna waa la sheegay iyo Yemen masaaxibta markii uu diray wuxuuna ogeysiiyay wili wuxuu yiri musxaf walba oo ka soo hara musxafkan aydiin soo dira hal gubo yiri hal lagu akay inta oo kaliya masaaxifta yaanan la haysanin oo yiri musxaf kale aad buu u dadaalay radiyallahu anhu idan waxa la yaab leh arinta waxay socotay kaana naas ummatan waahida ahaayeen oo musxafkaas baa la haystay oo aanan dhibac lahayn oo aanan shaqlanayn laakiin قراءات العشرة أما هذا وحان أغرنو دن أي كوة قرنيهين لأن الكلمة مثلا
كلمة ملك يوم الدين مع سبورت هذا ماشي أول لهاد معلمين تهين سبورت أن وحبذنك قري لهن كلمة ملك يوم الدين مركا قريسيد أما حنقول مالك أغري ومالك يوم الدين راويه ناصر سوماهرنا أوكي مالك مركا لقرايو وقالت وأنا إلى أوجاتين أرديد ضدك قرآن كبرايو مالك ألف إن لقيتها جماعة ميم كذب هذا مالك مركا قريسيد ميم أقرتدا ألف وقلتها كتيد أردي قرآن وما قرن اللغة العربية نوع كم إذا قرتي سيقرنتها وقرنيسين ميم ك اللام ك كاف ك وإسكو حرير سيهين ميم كذب ألف ير كرك صار سوماهنا لبدي قراءة أبو ويكو قرنتها ملكين والله أغري كرا مالكين ولا بضيب والله أغري كرا وهكذا قرآن الكريم هذا كورنا محل هذا مزيد توفيق كتابك عقيلتي وكل ما ينوك أغرين عقيلة التراب المحل القصائد والإمام الشاطبي والله هاي أو رسم القرآن الكريم لأنه وحشرد معلنك قرآن كريم أو أردد قرآن كريم برايو ولازم إن أوبرت رسم القرآن الكريم iyo dabdigiisii waa waajibna ma ahan maxaa la yiraahdaa ha socoto wax la yiraahdo ma ahan sida quraanka kariimka qoraalkiisii sida uu u qoray imaam Uthman oo nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam hortiisii lagu qoray nabiga kaana ma yaqra wala yaktub mana qori jirin mana aqrin jirin laakiin hortiisa lagu qoray shuruudiha idin soo sheegay sida hadda musxafkan Uthmaniga aan ku haysanna aan loo qori jirin waxa ogaanaysiin كلمة أرضية مركا أقريسين إن أويهي سيدا مصحف القرآن الكريم كأقرأ إن أويهي وأنا شرط من شروط تعليم القرآن الكريم أيتهي مركا كدب أصدق القرآن كي رسمي أهان أقرن محل يرى هذا وقتك علي كدب خلافات وحرد إذن ومدى مروة مركا كدم بيسو خلاف كي إيمانيو خلاف إعرابات بايميدو محل يرى هذا ضد بدن عن المحل يرى هذا أنا قرنين اللغة العربية سفي عن قرنين أيا صو إسلامي مركا ضدكي صو إسلامي أيا وحي نقطي إن قرآن كريم كالله شغله ولذلك إمام مالك رحمة الله عليه آدي أديدون كو أدكاي قرآن إلا شغله وحده جري وبدعة إن القرآن كلا شغله هلو دايو ده جري السيد النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سيكو أوجايين لكن ونبضن محل يرى هذا إن لو دايو سيداس أسقو هذا نو شغلن أو محل يرى هذا سيد أويها أركينو أو سند والبو مصاحفة القرآن وحلقو سو زياديو oo صوت lagu soo ziyaadiyay xataa sheekhi aqrina lagu soo ziyaadiyay xifdiskiisa wili waa tacbaan ummadda islaamka waxa isleedahay waxa u dhiman quraan kariimka in faleebo loogu rakibo oo loo maxal yiraahdaa oo dhinac loo geliyo kaliya oo harsan ayadoo xifdiskii oo maxal yiraahdaa qoladii naga horeysay saas u soo xifdinayeen idan waxa bilaawday waxa la yiri in la shaqlo quraanka kariimka ومهم كواية مسألة أو كم همسن محل هذا ضبط القرآن الكريم عنده لهاي رسم القرآن الكريم ومحاكم همسن قضية ضبط القرآن الكريم حيتها ماشان إن فتح الله يالو إن كسر الله يالو إن ضم الله يالو فتح هذا محيتها كسر هذا محيتها ضم هذا محيتها لبجودك محوية هاي هالجودك محوية دبعي هي اللي سكوب قبصدي مركي عن محل هذا نون دبع سينينو مركان بعد دبع سين لبدي بوا اسكسيبها لو قري لكن دبعي انت لو كلا قرايا مركب برنامج ك وذاتك يقدموا حاليا وإنه ليه وقتك يا رمادي وصوصعتها مركا برنامج كان معهن برنامج لغسو كوبي كارو محلي هذا هالمحاضرة iyo maxaa yiraahdaa hal darsi iyo hal cashir lagu soo koobi karo maahan aniga waxaan leeyahay oo aan ula dardaarmaya macallimiinta quraanka kariimka waxaan ula dardaarmaya quraanka kariimka iyo san noqonin kaliya in la xifdiyo وأنا حفظين سيدو كله عقيلة أطراب عقيلتي أو محل هذا إمام الشاطبي أو رسم القرآن الكريم سيد القرآن ككريم كرسم جيسي عقيلة مهم جدا وهي تعالى وحيكون فضضين إيسا قرآن ككريم كقرآن كيسي سيدو يها أو فيرسو لبا كلمة ذو وحار كيسا اسكو سي لوغو واقع لكن أنا اسكو سي أقرنين قرآن كريم وحبضا أركيسا مثلا هذا المثل كسوق هذا إنه كلمة تماثيل وعيكو سو أرورتي محلي هذا سورة إيه الأنبياء سورة السبع سوماهنا تماثيل شو كجرتو سورة السبع سورة كجرت الأنبياء كجرت ألف كتاجن
تمام ميمك ألف وين باكو تاع ألف دير لكن هدا أتكتد محل رهتا سورة الصبا هدا أتكتد ألف ملها ألف كي يراي أو سيدي كي مالك يوم الدين أو كلا أي أقرنتهاي مركا قريسيد هدا ده أنا سيدا ربع أقرنا أما ألف كوذا تاجا أما ألف يدي كوذا دمايا ما سعنيسو مدول بوم مش أوليه أسل كيسي إلا جيوه كلمة شاء فيري كلمة شاء قرآن الكريم كأردن شاء وحي أقرنتهاي هل شيء أقرنتهاي إلا مركا أتكتد محلي هذا إلا أن يشاء الله سورته الكهف إلا أن شاء الله سورة الكهف سيدة أقرنتها قف قري كرم جرت وعرب بدنتهاي إلا مسحف كينا في رسيد إلا أن شاء الله سيدة أقرنتهاي مركا برنامج عرس واية وأنا أهين برنامج محاضرة أهنا محلي هذا برنامج علميات oo u baahan saacado iyo maalmo iyo in dadkii loo hor fadhiisto waxaan u maraynayaa intaan rabay kulley maanan sheegin laakiin meesha akademiyinimo waqtiga loo baahan yahay la yiri wixii inta dheer insha Allah taala waa isla joognaa barakallahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh